waxaan marka hore u mahadnaqayaa guddida joogtada ah ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland oo maanta halkan nagu marti qaaday haddaan nahay banka dhexe Jamhuuriyadda Somaliland waxay naga wareysteen waxyaabihii waajibaadkooda iyo gudinaya xagga dhaqaalaha iyo wixii banka dhexe uu qabtay sanadkiina dhaafay waxyaabahan ka hadalay ugu waaweynaa waxa weeyaan tabashooyinka dadweynuhu ay qabaan waxyaabaha qaarkood oo ka mid ah masalan haddii aan soo qaado doolarka qiimihiisa hoos u dhacay iyo maciishadda oo dadka qaar yidhaahdaan ma wada socdaan su-aashaas waanu ka jawaabnay waxaanu siinay daraasad aanu sameynay oo banka dhexe sameeyey August 2019kii oo muujinaysa in ay wada socdaan maciishadda iyo qiimaha doolarka ay hoos u dhacay taasoo qoraal ayaanu siinay waxa kaloo ay guddigu naga wareysatay oo na weydiisay xagga dhaqaalaha misal sicir bararka qiimaha shilinka waxyaaba iyo wixii la mid ah marka intaasba waan uga jawaabnay in qiimaha shilinka Somaliland oo kor u kacay boqolkiiba 21 laga soo bilaabo April 2018 ilaa iminka oo maanta alxamdulillah marayo 8500 ama gaarkiisa iyo sicir bararkii oo isaguna hoos u dhacay oo iminka wuxuu marayaa 4.5% sicir bararka ka jira Somaliland marka gobolada kale la eegay iyo wadamada inagu xeeran مثلا يوغندا ولا أنا واصيصة وها 3.6%. إثيوبيا إحنا كينيا وحوي 5.8%. إثيوبيا وحوي 18.5%. السودان و 58% وبشي ديسمبر 2019 كي. الجو كم مقاطعين السومالان كلامها أبوه سيء كهجرتو ودمر أفريقيا كاين وحيران. يا حاجة سعر بركة. cabashooyinkii faraha badnaa ee suuqa ka jiray taasina way yaraatay ama ma bajirto imika marka arrimahaas aan iska wareysanay guddida golaha joogtada ah su'aalo badan oo weydiiyeen oo jawaabnay si fiican oo lagu dhamaaday alxamdulillah salaamati gudoomiye haddaan hal su'aal ka weydiiyo dhawaan bangiga adduunka oo kaashanaya bangiga dhexe ee Somaliland iyo hay'adda shaqaalaha dawladda oo lacag badan ku baxaysa mashruuca in shaqaalaha dawladda loo sameeyo mushaaraadkooda in bangiga inay account ku sameeyo account loogu sameeyo qorshahaasi halku ku joogo electronic orda bank adduunka shaqo badan bank adduunka shaqo ku leeyahay maaha weeyaan waxa weey annaga qaroonay 2018 ka horaantiisii banka dhexe waxaan ugu talagalay shaqaalaha banka inay mushaarkooda ma account ugu dhaco ay kala bixi karaan oo saadka ama dahab ay wax ka iibsan karaan tiibaan yar badaarinay oo wasaaradda maaliyadda naga codsatay in shaqaalahooda hargeysa joogaan oo ilaa 900 shaqaalaha oo kuyu u galaday mushaarka marka bisha dhamaato inaan u fududeeyno iyagana aanu xisaab uga furo banka dabeetana ay ku xawilan karaan saad ama dahab waxa kaloo iyaguna naga codsaday hay'adda shaqaalaha markaas labadaas baan u sameynay dawladda intii kale naga codsatana diyaar baan u nahay inaan u sameyno marka aan chance u helno imika waxaan ku horeysiinaa golaha wakiilada iyo madaxtooyada oo aan shaqaalahooda aan badnayn ama cadadku uu yar yahay marka waa wax anagu aanu sameynay banka dhexe iyo labadaas shirkadood oo aanu ka kaashanay xagga IT ama technology heshiis labaana gelin laakiin waxaan la galay in qaabkii lacagta la isugu diri lahaa aan isku caawino oo taas aan ugu heshiis ku galay laakiin fikradda waxay iska lahaa banka dhexe Somaliland lacagtii haweeneyda Somaliland meesha ka baxday markii boobihii ganacsigii lala tago intii haraagay ardayda bulshada ganacsatada ay weydiinaysaa 500 wax ka waxba lagu iibsado idinka maxay idinka qorshaysan lacagtaas orda lacagta markay wax goynayso baad laqaata dad 100 shilin baa qaadanaya waxaan ku iibsanaya waxaan ku goynay markay hore marka daabacaadda lacagtuna way qaali waxa laga yaabaa noorkan daabacayso iyo qiimaha noorka in daabacaadda kharashkeedu adeeyahay marka laba sababood jiraan lacagaha yar
imika lama isticmaalo hoos dee waxaan soo gaarnay iyadoo gambada xukuus oo gamba la qaato imika dhaqaatidaas oo ka baxday waayo xawaani ka weyn markaa 500 baa ugu yar imika wax la qaato ama baanku soo daabacay